halkani waa degmada Quljeed ee ka tirsan gobolka Awdal waxaana saaka bulshada qaybeed kala duwan ee ku nool degmadaasi uu horkacay gudoomiyaha degmadaas Maxamed Hodoon Ismaan ay bilaabeen olole ballaaran oo markaasi kor loogu qaadayo quruxda iyo bilicda degmadaasi isla markaasina ay ku burburinayeen dhismaha guriyihii hore girgidaha ee markaasi ka kooban dhoobada iyo looxa qorshahan oo ah mid ay ka midaysan yihiin shacabka ku nool degmadaasi kaas oo ujeedadoodu tahay sidii degmada Quljeed ay ula jaan qaadi lahayd isbedelka ka socda magaalooyinka dalka Soomaaliland kadib markuu hawlgalladaasi dhamaaday dadka ku dhaqan degmada Quljeed maamulkooduna horkacay ayaa waxay baaqi kala duwan ay u direen dadka iyadu mulkiyadeeda leh guryahan girgidaha la duminayay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay u soo gaaraan isla markaasina ay dhistaan si markaasi kor loogu qaado bilicda degmada Quljeed bulshada ku dhaqan degmada Quljeed oo hadalkooda sii wata ayaa waxa kale ay fariin u direen isla markaasina ay xukuumadda Soomaaliland ka codsadeen gaar ahaan wasaaradda hawlaha dhulka iyo guryeynta inay u soo dirto cagaf iyo iskarogo ka caawiso burburinta dhismaha guryahaasi hore ee markaasi waqtiga hawshiisa socoto si ay markaasi bilicda degmada Quljeed ay kor u sii kacdo war haday lacagtu ku dhibtood Quljeed u quuri wayday annaga dhisanayna maanta oo bixinayna annaga bixinayna oo dhisanayna haddaad ku xisaabtamaysa ballaadad booraba ka dhisato ninkii girgida lahaayow ku baahan baa jooga halkan oo dhisanaya oo ku xisaabtamaya isagu waxa weeyaan dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland waanu dhimanaa waanu dhalanay wana noo dhagal lagu shahay waliba qasaara kuma joogna way noo dhagal lagu shahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hawlaha guud waxaan maanta ka rabnaa baldoos aan iskaga duminno guryaha 85 sano jiray ee naga xoog roonaaday dumintiisii ee rag iyo dumar iskugu tagneen wadno wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland ay khusayso nidaamkani girgida duminta iyo bilicdu waxay ka codsadeen in cusubka si degdeg ah soo jawaabaan oo siiyaan qalab waxay uga baahan yihiin sida cagafyada iskarogooyinka khashinka qaada iyo wixii kale agab uga baahdaan taa waa codsi aan u jeedinayo dawladda Soomaaliland insha Allah waxaan leenahay degmada Quljeed had ninkii guri ku lahaa meel kasta uu joogo ha ka soo qayb galo gurigiisa ama ha iibsado ama ha dhisto waxa weeye hal girgidaho lagu daynayaana ma jirto waa go'aan maamulka degmada hawqaatay dhalinyarta iyo haweenka iyo dadweynaha magaaladuna ay ku raaceen madaxweyne ku xigeed maanta waxaan kaaga baahanahay taageero degmadaadan oo degmadaadiya taageera lagaaga baahan yahay sidaad wax noogala qaban lahayd inaad wasaarad walbana hor kacdo oo girgidaha dadku ay bahalaha ku cunayaan laga waxeeyo cidda magaalooyinka waaweyn bas ka gurto way naceen cidda joogtaan siinaynaa cidda joogta ee anan nicin halka ku nool baan siinaynaa haddaannu odayadii waddanka nahay iyo maamulkii waddanka gudoomiyahana waxaan ku amrayaa waa girgidahani awalba ma lahayn tamareeri baa hayna ma lahayn sharci ma lahayn dhalinyarada degmada Quljeed oo isxil qaaday oo waxa ka damqaday muddo badan aan ku hiranaynay inaan maalin aan isxil qaadi doono aan iska dumin doono girgidahaas waxaan aad iyo aad sidoo kale aan taageero buuxana siiyay oo ugu mahadnaqaynaa maamulka degmada cagafta dawladda han ka codsanaynaa way imanaysaa iska rogadaas insha Allah way imanaysaa dawladdu waa dawladeeni waati muxuu ahaa intaasoo sanahan taageeraynay handaba joognay maal iyo muruqba uu naga galay iyo maskaxiba idinkuna weydii ogtahay waxa weeye madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaan leenahay codsiga degmadu hay idin soo dirtay waan maqlaysaan sideeda inaad noogu hirgelisaan waxaan oran karaa Soomaaliland wuxuu ka bilaabmay degmada Quljeed buu ka bilaabmay iska wax u qabso dhalinyaro is abaabushay cidina aanay dirin iyagu iskood majarafadahooga iyo jagnayaashooda iyo maxaan ku yiraahdaa qalabkooga inta iyagu soo iibsadeen maamulka degmaduna ka taageeray yaani waxaan oran karaa waa wax aad iyo aad loogu farxo run ahaantiina horta haddana adigu waxba qabsan cidina waxba ku qaban mayso Maxamed Xasan Simaashir Barad magaalada Boorama